casho sharaftan oo soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ujeedkoodu ahaa sidii jawi degan oo nasiina ay u qaadan lahaayeen wasiirada caafimaadka dowlad goboleedyada oo saddexdii cisho la soo dhaafay magaalada Muqdisho uga socday kulan looga hadlayay arrimaha wada shaqeynta iyo mas'uuliyadka ay kala leeyihiin wasaaradaha caafimaadka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo diyaar garowga qorshaha howleedka sanadka 2021 iyo halbeegyadiisa agaasimaha maamulka maaliyadda ahna kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdiqaadir Xirsi ayaa ugu horeyn sharaxay ujeedada loo qabtay casho sharaftan. casho sharaftan waxa loo qabtay in lagu soo gunaanado ama lagu soo gabagabeeyo shir 3 maalin uga socday wasaaradda caafimaadka federaalka Soomaaliya oo ku casuuntay wasaaradaha heer maamul goboleed ee Soomaaliya shirkaas oo lagu falanqeynayay caafimaadka qaybo ka mid ah oo aad iyo aad muhiim u ah oo ay ka wada shaqeynayeen wasaaradda caafimaadka federaalka Soomaaliya iyo wasaaradaha federaal heer maamul goboleed waxa aad iyo aad farxad weyn noogu ah inuu shirkaas 3 bari socday uu noogu dhamaaday si guul ah. wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan oo ku hadlayay magaca dowlad goboleedyada ayaa uga mahadnaqay casuumaadda iyo casharafta loo sameeyay. aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo cashadan iyo weliba kulamadii aynu soo dhamaynay haddeerto muddadii aynu wada joognay aad baan runtii ugu faraxsanahay. waxaan runtii rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan dadkii na soo dhoweeyey dadkii ka shaqeeyey inaynu kulanno oo ay kulan shaqo ina dhex marto iyo gaar ahaanba wasiir Foosiya oo runtii casharan noogu macsuuntay. wasiirka caafimaadka dowladda Soomaaliya Dr. Foosiya Bikar Nuur ayaa wasiirada caafimaadka dowlad goboleedyada uga mahad celisay shaqooyinka sida wadajirka ay u soo qabteen. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in 3 maalmood kadib shir iyo shaqo in caawa aan idinku sagootin doono xafladan yar aan ugu talagalnay in ma aragtay si degan loo sheekaysto. waxa idin soo maray 3 bari oo shaqo aad iyo aad u culus laakiin guusheeda ma sha Allah maanta aan wada gaarnay. waqtigan ugu yar waa ka xumahay laakiin waa isu soo noqon doona waana idin imaan doona haddii alla idmo. marka soo dhawaada. gabagabadii ayaa waxaa madasha lagu bixiyay shahaado sharaf iyo abaalmarino kala duwan oo lagu doonsiiyay madaxda maamul goboleedyada oo shaqooyin wanaagsan ka qabtay arrimaha caafimaadka iyo la tacaalida safmarka COVID-19. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.